السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وواسكي ضبلوها ميل والبيتو أدوية كيغا سوغنتهين وحنا ديكو سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاوة وحنا كهر ليا دور غضب وفيري حساسية وليبا سياسية قضب كيغو ugu horeeyeen caaw ka hadlay waxa weeye xildhibaanada federaalka Soomaaliya waa 275 marka lagu daro madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo 54 xildhibaanada aqalka sare xildhibaanada Soomaaliya intooda badan waxay ka tirsan yihiin wasiirada xukuumadda khayre haday noqoto wasiir dawle haday noqoto wasiir ku xigeen haday noqoto wasiir caadi okay inta soo hartay marka laga reebo inta ka tirsan xukuumadda xildhibaanada Soomaaliya inta kale soo harto marka laga reebo hal iyo labo oo magacyadu dhawayo sida xildhibaan fiqi xildhibaan Sacdiyo iyo xildhibaan Mahad Salaad iyo xildhibaan Cabdiraxmaan Odowa marka laga reebo intooda kale xildhibaanada federaalka Soomaaliya waxa lagu hayaa blackmail wax loo yaqaan blackmail kaasi siyaasadda caalamka waa ka xaraan weey sidaasay taana wadamada caalamka intiisa badan siyaasiyiinta waxa loo isticmaalaa blackmail si magaraysa waxyaabaha laga dabacsan yahay ama waxyaabaha laga rabo looga fushado okay dalkanaga Soomaaliya muddo dheer buu burbur ku soo jiray dagaal sukeeya ka soo baxnay dawladdan hadda jirtay oo hogaamiye farmaajo khayr hogaamiyaan ya kaljarkan blackmail ka keento dawladihii ka horeeyay ee Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif iyo Cabdullah Yuusuf iyo Ilaahay ha xafido madaxweyne Cabdiqaadir Salaah Xasan waxa weeye kan shaloomihin am waqti loomihaynin system kan hadda farmaajo khayr la yimaadeen ee la yiraahdo blackmail okay detail kaasi sii gali maayo ma jirin waagi Xasan Sheekh Maxamuud ما جري جرين واجي الشيخ شريف لكن سيستم كان بلاك ميل كسياسيين تلا بلاك ميل قرينايو وحو يمد مركو فرماجي يمد يخير رأي مادين يبلاك ميل كيماد اوكي وحير يعني دول استاغيا وضب كاسغا يقابك بلاك ميل لوgu sameey xilbaanada iyo cid sameeyso madaxweyne maxamed Abdullah Farmaajo waa nin ka tagay dalkan Mareykanka رئيس الوزراء حسن على الخير وانين كيمد دلك النرويج لبضب قرب جوجوي دلك أمريكا كأجوجنو ولا سعنا أنت بدن ولا بلاك ميل قرية أيضا يدم بتهاي إن قفك سياسي أما قفك موادك عادي بلاك ميل لو سمين إسكسو تدوب أما هالسعته بلاك ميل وح عالم كجروي سياسة أولش بلاك ميل قرية سيدنا سياسة مركز الإسكالية الإسكالية فشل وحيماننا مركز حلباننا فدرالك الصومالية مركز كريبي حلبان فقي حلبان سعديو حلبان مها صلاة مركز كريبي حلبان هذا كتر سن حكومة دا وزير دولة ياشا وزير كحيجنا دا وزير هذا مركز كريبي انت صهرتي صوبتي اللي هاللايين يا دي كده بقيليا حلبان هذا فدرالك الصومالية بقول كيف السدات الوقرب الجوبي waxay ka tageen Ingiriiska Australia Canada Mareykanka ka wada tageen boqolkiiba 80 xildhibaanadaasi markii boqolkiiba 7 laga reebo waxay degan yihiin hoteelada ku yaala Muqdisho inta badan la qarxiyo hadda la socotaan waa sababaha loo qarxiyo ee loo beegsanayo garaysa hoteeladaas waxa laga urinayaa xildhibaanada inay degan yihiin waana xaqiiq jirto way okay sidee blackmail kan xildhibaanada la blackmail gareenayo uu ku yimaada taas arbaana idii fasiro oo idii kor istaajiyo oo si wanaagsan sidoo duqbilo wax idii faahsin jiray aad u faataan okay hoteelada xildhibaanada degaan anoona businessyada Soomaaliyeed aan ku xad gudbeen waa dhowr hotel way saddex hotel ka badan waana la yaqaana siyaasiyiintu dhan way garanayaan way la socdaan kuwa hadda programkayga daawana ee xildhibaanada blackmailka lagu hayo naftirkooda way la socdaan qaabka looga qabto laakiin oo duqbilow Ilaahay wuxuu ka dhigay dhaxdhaxaad Ilaahay wuxuu tusay xaqi inaan magaraysaay runta iyo reality-ga aan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyo aad baad u mahadsantiin ma jibaysnaan oo duqbilow okay xildhibaanada federaalka Soomaaliya laba qaybood baa looga qabtaa blackmailka waxaana qabato hay'adda sirdoonka ee NIS hay'adda sirdoonka NIS waxaa haysto hadda ninka loo yaqaan Fahad Yaasiin waana milkiilaha dawladda sababta xilkaas loogu magacaabay uu qabtay ama uu garaysa u juus garaystay sirdoonka ama hay'adda NIS oo qabto waxa weeye xogto dhan siyaasi iyo shacab xogtiiso dhan ba halka la isugu geeyaa
okay waxba detailkaasi nisa sii gali maayo iyo qaabka u shaqeyso waxaan ka hadlayaa reason kanuri xildhibaanada federaalka marka laga reebo afar xildhibaan marka laga reebo kuwa xukuumadda ka tirsan inta soo hartay reasonka looga hayo blackmail okay waa laba qaybood weey qayb waxa weeye waa qayb tumashada jecel weey asagoo og oo dareensan oo fahansan oo aad iyo aad loo socdo laakiin aan niyada gelinin in marnaba blackmail lagu sameynayo ayuu magaranaysaa asoo fan jecel ama tumashada jecel ama gabar yar oo Soomaaliyeed inuu lugoyo ugu talagalay yaa gabadha yarta nisa isticmaalayso waxay siinaysaa $5,000 siinaysaa gabadha yar oo Soomaaliyeed hadda ka hor idaacadaha ka maqasheen in wadada Liido ama xeebta Liido area hoteelo badan oo shiishada lagu cabo hoteelo badan oo magaranaysaa xaalado badan wala detailkaasi galmay waxa ku soconaya qodobkayga iyo reason kan uu blackmail xilmarada loogu hayo okay xilbaanada qaar waa ayagoo tumasho sameeynaayo oo gabdheer loo adeegsaday oo qayilayo ama mirqaamayo ama shiishad cabayo ama si kala ku dhacdo oo og uu shukaasada gabadhan ama la socdo ee gabadhan nisa hoos lacag ka siisay wax loo diro weeye ajirada laga qabtay kaawaas og yahay ismara dhaqaajiyo qaybta kala ku saarta marka ee blackmailka lagu hayo ee aan war ka haynin ee aan gabarna u tagin ee aan u tagin cidna aan u tagin hotel lagu baashaalana aan tagin ee blackmailka lagu hayay sheegay hotelada Muqdisho ay rag mas'uuliyiinta degaan ama xildhibaanada inta badan ay degan yihiin waa hoteelada ay al-shabaab in badan qarxiso way hoteeladaasi waxa ku dhagan wax loo yaqaan CCTV camera wax loo yaqaan ku dhagan okay qarax markuu dhaco oo al-shabaab qarxiso ama dagaal meesha ay ka rido waxa timaado hay'adda nabad sugidda booliska iyo hay'adaha kala duwan bay maado ugu dambeyn waxa meesha yimaado hay'adda nisa waxay qaadataa database-kii CCTV-ga qaadataa si ay baaritaan ugu sameeyso wixii meesha ka dhacay okay way soo celisaa waxay dib ugu soo celisaa database-kii iyo CCTV-ga waxay dib ugu soo celinaysaa qolada hotelka marka uu dib ka dhaco waayaha la bilaabaan idin sheegaya raal noqdo ha wareerin aad ila socdo si wanaagsan oo quruxda blackmail kan iyo qaabkan xilbaanada loo isticmaalayo ee loo blackmail gareenayo waagi Xasan ma jirjirin waagi Sheekh Shariifna ma jirjirin waagi Abdullahi Yusufna ma jirjirin waxay bilaabatay markay Fahad Yaasiin iyo Farmaajo iyo Khayr ee xilka la wareegeen okay hotelka markuu qarax ka dhaco ee CCTV ga qaataan hay'adda nisa way soo celisaa laba maalin ama saddex maalin hotelka wuxuu u xiran yahay hay'adda sirdoonka Soomaaliya iyo hotelku xiran si ay qashirka dhagaxii dhacay wixii meesha ku qarxay iyo xabadahi si u arursato naqshad u samaysato nisa ayadoo taa ka faa'iideysanayso taasi waa shaqo dastuuri way inay sameeyaan baaraan hagaajiyaan hotelka ay fiiriyaan si wax u dhaceen waa shaqo dastuuri way laakiin waxa ku jirto shaqo aan dastuuri ahayn hadalkayga aad dhigaysa shaqada aan dastuuriga waxa markuu labada maalin hotelka u xirayay ee kaamirooyinka dib u soo celiyaan ee hotelka magaranaysaa ee blueprinterkiisii ama qaab naqshad ahaan qaabkii loo soo galay iyo sida wax ku dhaceen ay baarayso hay'adda nisa ee Fahad Yaasiin uu hogaamiyo waxay sameeyaan qolalka kala duwan ee hotelka especially qeybaha ay degaan xildhibaanada waa levelka 1 maaha 2 maaha 3 way levelka saddexaad iyo hotel walbeeto ka degaan xildhibaanada for the safety ana hadii qarxinay ma degaan qolka afraad ma degaan levelka shanaad ma degaan levelka hoosena ma degaan ka labaadna ma degaan xildhibaan walba iyo wasiir walba hotel Muqdisho ku yaala degan wuxuu degaa levelka saddexaad buu degaa waa wax la og yahay oo caame oo la socdo way sababta u dagaana waxa weeyaan for the safety reason hadii meesha la soo weeraro hadii magaranaysaa xaaladaha inta badan dhaco ay yimaadaan si ay uga boodaan balakoonka ama darbiga uga boodaan okay hay'adda nisa markuu waxay sameeysaa hoteelada Muqdisho ee xilbaanada degan yihiin waxay sameeyaan levelka saddexaad qol walba waxay ku xirtaan kaamiro qarsoon oo la ogaan karin la heli karin kaamiradaasi waxa si toos looga daawanayaa xarunta dhexe ee nisa kaamirooyinkaasi waa night vision way maaha kaamirooyinkan oo CCTV-ga ee qabanayo ama light-ka u baahan magaranaysaa sida normalka loo isticmaalo waa kaamirooyin ay sirdoonka isticmaalaan iyo codka iyo videoga habeen iyo maalin
isku si u qabanayso night vision camera la yiraahdaa oo sirdoonka ismaana qolalka levelada saddexaad oo dhan hoteelada ay degaan xildhibaanada waxay ku xirtaan kaamirooyin night vision okay qaar codod bay ka qabtaan bili aadan weey dhakiisho sirtaada meesha uu jiifo xildhibaanka korkeeda si codka iyo muuqaalka u qabto xildhibaanka meesha uu jiifo korkeeda lagu xiraa maxaa dhacayso marka xildhibaanka bili aadan waay haday gabar tahay iyo haday wiil tahay shaydaan baa inta badan bili aadan ka qaada runta idin sheega dhageysto waana xaqiiq jirto oo ma garanaysaa nisare ogtahay xildhibaanada lagu tiradgareeyay ee la socdaan anigana aan la socdo hadalkayga dhageysto xildhibaanada habeenkii markay tahay waxay yiraahdaan light-ka damiya waa kaliga qolka cidna kulama joogto dhageyso light-ka iska dadsadaan qaarkood waxay sameeyaan waxa bil aadanka ama ragga inta badan ay sameeyaan qaarkood dumarka waxay sameeyaan waxa ay dumarka sameeyaan markay kaligood yihiin haddii ninkeeda ka maqan tahay haddaan la qabin idaasmaara detailka sii gali maayo wax liiga bartame muhiimadda marka waxa weey xildhibaanada markay seexdaan ay qolkooda galaan ay light-ka iska damiyaan ee kaamirada way qabanaysaa si toos ah night vision bal yiraahdo sirdoonka inta badan isticmaalo TV-yadana way isticmaalaan aadiya waxa laga qabtaa xildhibaanada 80% sida loo daba taagan yahay ee cajalada u duweyso waxa laga qabtaa xildhibaanka ama dharka iska bixiyay oo isla qolka kaliyaaba ku jiro oo cidna kuma aragto ama xildhibaanada dharka iska bixiso dharka bedelayso laga yaabo inay meesha jiifto dharka iska bixiso qabiiska aadaysa tirad qaarkood xildhibaanada waa bilaada way ayagoo gacantooda isticmaalayo cajalada laga qabtay xildhibaanka markii sharci inuu baas gareeyo laga rabo waa kuwan ku jirin wasiirada waa kuwa aan soo sheegay sida mahasalaad iyo sacdiye iyo guryaha kule iyo dhowr xildhibaan ilaa 20 ma gaarayso xildhibaanada guryaha kule Muqdisho ee degan 20 waa ka yirin inta kale xildhibaanada markii wasiirada ku jir laga reebo waxay degan taladaas waxa laga qabtaa cajalada night vision qabteen oo ayagoo qaawane yaa laga wada hayo xildhibaanka markii la rabo sharciga wasiirka inuu baas gareeyo ama sharciga ma garanaysaa ee wasaaradda u baahan tahay inuu baas gareeyo ama danta laga leeyahay waxa loo dirayaa clipka telefoonka lagu dirayaa waxa la leeyahay cajalada duqbilo waa loo dirayaa ama daahir cali soo waa loo dirayaa hadii aadan sameeynin waxa anaga aan rabno waxa anaga aan doonayno hadii aadan sameeynin cajalada duqbilo waa loo dirayaa saddexdii sano soo dhaaf ilaa hadda way socotaa xildhibaanada marka wadnaha istaagay xildhibaanka suulaha xor baa tahay meel magaraysaa facshir ma tagin meel qaab dara ma tagin waxa weeye hotelkiisi dhaxdiisii yaa looga qabtay asagoo dharka bedelaayo asagoo gacantiisa isticmaalayo asagoo qaabo badan cidna kuma aragto ilaahay baa ku arkay kaliya uu leeyahay gabar iyo wiilba looga qabtay aadiyad black mailka marka lagu sameeyo xildhibaanada federaalka Soomaaliya taas weeye cid hadli karta male cid niqdii karta male hadii aad idaacadaha daawatid xildhibaanada federaalka Soomaaliya markay dooda ka qayb galayaan kuwa aan wasiirada ku jirin ama kuwa aniga ka hadlay aysan ku jirin xildhibaanada boqolkiiba inta kale waxay yiraahdaan hanala magaraysa waxba kuma darsanayno dib ha noola celiyo doorasho kala la galo nin walba inuu baxsado rabaa reasonkii hore u galayna wuxuu ahaa mooshin iyo inay ka taajiraan inay dhaqaale ka sameeyaan laakiin nin walba hadda wuxuu taagan yahay gabar walba hadda waxay taagan tahay ilaahay uga badbaadi waa cabsida faraha badan ee xildhibaanada federaalka Soomaaliya haysato way bom sirta way qarxisan tahay laandheer faadiyaasin laandheerayaasha ugahay clipka tii loo qaado ama telefoonka laga duubo aan loo diraa anaga haduu direeno social media iyo duqbulo daahir cali show waad ku ciiboobaysaa hadii kale waxa aan danta aan ka leenahay samee sharciga aan rabtid sharciga anagu aan rabno inaan baas gareebal gudaa waad faanteen baan u maleynaya boqolkiiba 80 xildhibaanada federaalka Soomaaliya night vision camerooyinkaas loo qabtay waana faanteen baan u maleynaa dib ugu noqon maayo aadiyaad qodobka labaad baa ka hadlaya ma sha Allah oo sida qodob siyaasi oo arrintan aan quseenin qodobkayga labaad waxa weeye doorashadii